إنا لله وإنا إليه راجعون الله نحرسته مرحوم كي geeriyooday walaalkeen Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Yariisow oo ahaa duqii magaalada Muqdisho dhamaanteen waan wada dhimanaynaa oo meeydaan nahay waa wada soconaa qof walba maalintiisa uu leeyahay qof daqiiqad ama sakin loogu darayna male naxariista janna Allah ka waraabiyo qabrigiisana waasic Allah ugu dhigo waa ugu mahad celinaynaa ra'iisul wasaaraha asigoo safar ku yimid inuu sida ugu dhaqsiyaha badan uu ku soo gaar goobtii ay tacsiirtiile aad iyo aad u mahadsan yahay waana laga gudoomay dhamaanteena ma aragtay waxaan leenahay walaalkeen maanta ducuu noogu baahan yahay aan u duceyno ducadaasi maanta wax tarayso marka inta dhiman waxaan rajaynayaa inay khayr iyo wanaag ay ku dhamaan doonto aaskiisana si sharaf leh ku dhici doono insha Allah taala qabrigiisa Allah waasiiciyo annagana gadaashiisa Ilaahay nama fidneeyo awlaadii oo ka tagayna ma aragtay dhamaan ehelkii waxaan leenahay samar iyo man Allah ka siiyo imaatikaada taxsiida aan ugu timid waa kaga mahad celinaynaa waa tii waajibka aan la isku lahay waaye qof kastoo muslima in saas la isugu yimaado way habboon tahay safarka ku timid iyo meesha ka timid waa la soconaa waa kaga mahad celinaynaa adoo aad u daalan oo macnaha ku cudur daarina insha Allah taala hadii Ilaahay raadino ajir xasanaad Allah kaga dhigo safarkaada adiga akhyaartaada iyo asxaabtaada dhamaantood gudoomiye Yariisowna Allah u naxariiso sawir iimaan Allah naga wada siiya annaga iyo asxaabtii iyo dawladda dhamo ka wada dhintay waxa leena meel qiimo badan oo noogu yaala insha Allah taala waxa leena Ilaahay subhanahu wa taala qabrigiisa rawdati min riyadil janna Allah u dhiga ahladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii inta macrif laay inta matqana jeclaan waxa leeyahay sawir iimaan Allah naga wada siiya waxaan ognahay mugo dhaawac gaaray gurmadkii aad ka geysatay ma ilowsanin oo ognahay in xoogala ayana suuragal ah diyaaradaha timid asaaqaada nafteeda ku cilmi karto laakiin dad in la muujiyo muhiim ah dayac kuma dhiman dadaalkii lagu dhex jiro u dhimeeya haddana masaajidka waa ka timid adoo haddana raba inaad waajibka aaska yani hogaamiso horkacdo aad timid waxaad ogaanaysaa qaraabada maha fadhida inay intaasoo dhan ogtahay oysan ilowsanayn waxay ogtahay waa dad islaama in la dhimaayo naf kasta ay baxayso oo sidaas u dambayso cid kasta waa la kala horeeyaa ma ogeey cid dariiqaas oo dariiq la wada maraa waaye dad laga dhimo jaray oo aan la yaabanayn oo inay dhimayaan og waaye dadkan yani faa'iido iyo muhiimad waa noolahay laakiin iyadoo baahida la qabaa saas looga tegayaa meesha laakiin adiga waxaan ognahay meeshaad wax ka bilowdana waa ognahay hadda may wax joogaan waa dayaynaa aad iyo aad baan kaaga tacsiinaynaa si gaara adiga iyo qoyska hoose ka baxay wax kula mid ah saas inaan ugu tacsiina mudan ayaa ka jira inta kala dhaxday ku jiraan marka waa maasantahay ra'iisul wasaare safarku naftu joogi mayso waa la hubaa in lagana horreeyo lagana dambaynayo ninba maalimo noqonaa maalinkiisii maanta ku ekay hadduu London joogana waa dhima lahay hadduu Sariirtiisa jeefana waa dhima lahay sababtu waxay tahay maalin lagu madaraayo dad muslim ahaan nahay dad caqiido lahaan nahay dad ogaan nahay in la dhimanayo haddii la dhinto inta noolu marka waxay isku leedahay sabarsiin iyo dadaalka la muujiyey welina lagu dhex jiro ama meeshuu meydkiisii loo gurmanayo ama dhaawaciisa loo gurmada sida akhyaarta iga horeysa u sheegtay waa mid xusuus noole waa mid qaana ceer uu nugu wan yahay haddii la dhintana waxa la iska rabaa in ay timaado gurmadkaasuye nafta inaan la celi karin waa la ogyahay ra'iisul wasaaruhu wuxuu uu 2 bilood geedaha hoostoor u jiifay inuu in soo laalaabo uu soo baxo saakay uu yimaado haddana isagoon shaatiga bedelan uu jikadii ay teelay gogashii uu yimaado waxaan u garan karnaa inay xanuun iyo maaragtay qiiro ay tahay maadaama ka gaartaan leenahay adiga iyo waftigaagaba intaa kadib Yariisow wuxuu ahay nin qaran wuxuu ahay ninka calanka lamaad xiran qarankuna inuu u gurmado jidka qaran maraahu waa mid muhiim waadna ku dadaasheen naw guddigii la bixiyay soo magacawdayaan qaraabada dhexdeeda guddiga haddana lagu diraan ka mid ahayo sida wax loo qabtay waa garanaynay waana dadaasheen haddee maanta waa dib uu nooga dhacay waana garan karnaa carro dheeraa la jiraaho in jaraa'idku uu qaldan wax ka dhinaa karaan ilaahay ha sakhraan leenahay ilaahayna samaha ku keeno inta isaga inta la socota meydka aad iyo aad u mahadsantihiin
gudoomiyaha iyo intii la dhaawacantay iyo intii dhimataba taabadooda waa kaaga mahad celinaynaa. imaanshadu waa badan tahay ama waa dhici kartaa, laakiin imaanshadaadu macno weyni noo tahay. waad garoonka aad ka soo degtay adoon gurigaaga tegin toos noogu timid, meel dheer noogu qoran tahay. aad ayaad u mahadsan tahay. soo dhowow mar hore mar labaad waa madsanta.